بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحويها جود أقرب كدني يردا قارد يوروب حسبك ووطني وجهرين وحن هكذا كسلام يا دمان شعبي وينها جمهورية الصومالي لان كارهان تاجر ياشا حسبك ووطني إضافة عنه كسوان marka hore aan ka faa'iideysanayo fursadan waxaan tacsi tiiraanya la u dirayaa dhammaan ummadda ku hadasha afka Soomaaliga ee degan kuna dhaqan geeska Afrika gaar ahaan ummadda reer Somaliland oo ka tacsiyadanayo geeridan xinta leh ku timi fanaanadii weyneed Saara Axmed Jaamac Rabbina xariisti jannaha ka waraabiyo qabrigana ha u waasiyo dhammaan ehelkii qaraabadii iyo qoyskii iyo asxaabtii ay ka tagtayna إذا ما نمدر هالسومالي أنا سمري إيمان صادقها كسيو هذا أنت كجود بو تعسيداس أنا نقول هالليا أفكار قرب كدني يردا قارد يوروب حسبك وطني وحن سموله وتاجرنا كوانكي هجان كسر حسبك وطني يجودوا مية حسبكو مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ay kalsoonida kaga noqdeen gudida komishiga doorashooyinka qaranka runtii waa go'aan xisbigu daw iyo jid u leeyahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu xaq u siinayo waqtigii ku munaasibka ahaana la gaaray maadaama doorashooyinkii kale ee golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay nagu soo foolleeyihiin maadaama ay gudidaas noqon waayeen dhexdhexaad ama garsoorayaal xaq iyo cadaalad ku shaqeynaya waana gudi la oran karo ama ay tahay inay ku fashilmeen hawlihii loo igmaday isla markaana gafcad ka galay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadii ugu dambeysay ee dhacday 13 November 2017 xisbiga wadani wuxuu bulshada iyo madaxweynaha u soo gudbiyay bulshadana uu soo bandhigay baaritaan dheer kadib gafafkii iyo khaladaadkii dhacay isagoo u gudbiyay madaxweynaha warqad 14 buu ka kooban oo ku soo ururiyay isla markaana uu ku soo koobay gafafkii sharci iyo qaladaadkii dhacay 13 November maalintii doorashada madaxtooyada iyo markii ka dambeysay tirinteedii iyo howlaheedii lagu jiraba kasoo dukumentiyada qodobeysan ee xisbigu u gudbiyay madaxweynaha bulshadana uu soo bandhigay waxa iyaguna afkooda ka qiray qaladaadkii maalintaasi dhacay شرحي مدحوينه حسبي وعد إنجنير فيصل على الورابة يمدحوينه كحين كهذا الطلاد هيا سوق جوليستي با ولا بدو با كم مرة فري قرارات كي يجفف كي دعي هذا با وحنوش يا مدحوينها يشعبي كسومالي لامبا إن يسان صور تقل سنة با واهين يدو أي سيد قيدا وعد هاي جفك يو إحدى أي كوكعان جدي داسي إن دورش الدنبا لجو آمنه عقلك سليم كأنه مشي جيو نمان كصدق قف أجر صوري وعي أردن يرى يهوين أنا وحبك جلب سنة درتود أجر يودين قارن دعوية حنوس وجارين إلا يرهض بقلال بقلال مشرح ودورشين كوكيل هذا يتديجان كوردية هأجر صوران برنابا مسكح الفيوبي مشي جيسو وحنوش يا رجع كدوبية ودني لأنتي أي دورشة دعيسة ككل علينا هدي ودني وقاطع دورش شذا لبده حسبية كلا جلية هدي دون برتين ودني تناسل بدن أو الكقبو دور كان فيشة ودني الكاس وصف فاستي ونديار معارضة أدق أو أيضا أتكيسم كيده بقى أيضا لهين haddaan taa halka ku dhaafo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxay bariyahan ku celceliyaan in xisbiga wadani la mowqif noqday Soomaaliya maadaama ay Soomaaliya ka soo horjeesatay heshiiska dhabo laakiin taa waxba iskama gelin tanina waa maalgelin Somaliland taasoo dawladda xaq u leedahay oo loo sheegay in xaq u leeyihiin inay geli karaan heshiisyo wadanka maalgelintiisa aan xisbiga ka soo horjeedin balse Soomaaliya aysan qaranimada Somaliland baanay أنا يدو أنا يجرتان كينا بقى أي حقرين تانا حسب موقف عدبو أيو كقاطي برشد أنا وعدي وحبذ أنا والقوع العلي لكن رجع صدق أوهاليا وحبذ قوع العلي منه ورجع سياسة كل حواشي أنا أورن كرا كل حسقوبي ومصارف سدا هذا لذا نوعنا
waxaan idin leeyahay ha noqonina il kama korayaal. bulshadu way ka bogsatay aafooyinkii dhacay 1994kii oo aad maanta dib usoo foqaysaan oo marar badan aad ku celcelisaan inaad ummadda qaarna aad muwaadiniin ka dhigtaan, qaarna aad tirahdaan waa Soomaaliwaan iyo xamar ayay u socdaan, oo qofkii idinka soo horjeestaba aad kelimadaha noocaas u adeegsataan ilaa iyo maanta Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu dalka u haystay. marka wax dhiga ummadda ku cusub maaha, laakiin hadday idin hore idinku shaqaysay maanta idin shaqayn mayso, oo raggii waddankan soo xoreeyay ee u dhintay maantana way joogaan. gacan ayaana idinkaga qabanaya haddii aydan sharciga idinku gacmihiina idinku qaadataan. wadani iyo kulmiye marka ay timaado labada idinkiina kulmiye ayaa xamar uga dhow, oo maxaa uga dhowday safiir baaba ku leedihiin bal ummadda usoo bandhiga Dr. Maxamed Cabdilaahi wasiirka hore ee arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu idinka qabto xamar ee Hargeysana Cigaal International Airportna asii weyn ugu soo dhaweysaan markuu idin yimaado. waxa yaab leh in 26kii March 2018 lagu qabtay magaalada Hargeysa kulan loo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland. kulankaas waxa uu qabtay hay'adda qaramada midoobay ee UNISOM laanteeda booliska ee UNISOM Police oo xarintoodu tahay Muqdisho. wixii ka horeeyay xukuumadda labaad ee xisbiga kulmiye iyo 7 sano iyo dheeraadkii ahayd ee xukuumaddii Siilaanyo waxaynu ogeyn in aan dalka laga ogolayn UNISOM. waatii oo qaybsanihii UN Nicholas K madaxweynaha Siilaanyo u sheegay uu ka diiday in xafiis UNISOM ah laga furo Somaliland. horena marxuun Cigaal iyo Daahir Yaale Kaahin iyaguna sida ay siyaasad cad uga lahaayeen. waxa bogod internetka UNISOM Soomaaliya la soo geliyay fiidiyoogii kulankan oo ay ka muuqdaan saraakiisha UNISOM Police ee ugu sareeya iyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland taliya xigeenka booliska Jamhuuriyadda Somaliland Fooxle. fiidiyooga wuxuu teetal looga dhigay marka la turjumo Hargeysa waxay marti gelisay kulan heer sare ah oo dib u habeynta booliska oo qoto dheer. waxaa ka muuqda kulankan saraakiil ku labisan dareyska booliska UNISOM Soomaaliya iyo shakhsiyaad ku shaqeysta magaca bulshada rayidka ah ee civil society iyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. kulankan inta la og yahay lama arag manana maqal TV iyo idaacad ka warantay oo shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland la socodsiisay. muuqaalka waxaa iska duubay laanta wararka ee UNISOM Soomaaliya oo boggeeda internetka soo gelisay. sarkaalka ugu sareeya UNISOM Police ee Soomaaliya Lucien Vermeer oo kulanka ballanqaadiyo ka sheegay ayaa sheegay in ciidamada UNISOM Police ah iyo kuwa Somaliland ayaa sheegay in ciidamo UNISOM Police ka iyo kuwa oo ka caawin doona ciidamada booliska Somaliland la keeni doono Jamhuuriyadda Somaliland. marka su'aashu waxay tahay goorma Somaliland ogolaatay in UNISOM timaado oo ciidamo iyo xafiis ku yeeshaan gudaha Jamhuuriyadda Somaliland. taa haddaan intaa ku dhaafo waxaa jirta xukuumadda tan maanta talada haysa uu garwadeen ka yahay ninka loogu dhawaaqay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland in qaabka loo soo dhisay runtii bulshadu ay ka muujisay suluug badan, taasoo ay ka muuqato xukuumad dhinac ka raran isla markaana beelaha ka midana loogu celceliyay beela ka midana aysan kaba muuqanba. tusaale ahaan markaad eegtid beelaha darafyada ee dega galbeedka Jamhuuriyadda Somaliland iyo bariga Somaliland oo runtii aad moodid in xukuumadani aysan wixii xukuumadii horeba ay kaga sii dartayba qaabka xaqooda ay u dustay. waxaan oran karaa waa xukuumadii ugu tayada xumayd uguna liidatay. inkastoo aanay weli xukuumaddu aysan howlgelin haddana waxaa la yidhi biyaan horaantooda arko dabadoodu maxay noqon doontaa. sababtoo ah madaxweynuhu dikreeto kasta u soo saaro waxaa ka muuqata inuu qaraaba kiilowun isaga qabaalka ama qabiilkiisa ama intii isagu u arkayay inay doortaan, laakiin wuxuu ka maqanba inuu ummadda uu madaxweyne u wada yahay oo uu kii u codeeyay kii ka codeeyayba ay ahayd inuu cadaalad iyo dhex wax ugu qaybiyo. 1960kii
dadka reer Somaliland markii ay la midoobaan Soomaaliya saluuga ay ka muujiyeen wuxuu ka bilaabmay qaabkii wax loo qaybsaday. waa nasiib darro 27 sano ka bacdi in dadka reer Somaliland ay indhahooda ay qabtaan wixii iyagu shalay ay xamar ka diideen oo maanta iyagu madaxdooda ay ku dhaqmayso. runtii dadka reer Somaliland markii dowladda siyaad bar la dagaalameen gaar ahaan beesha Isaaq ay ka soo jeeday macaanuhu markii la dagaalamayeen waxay haysteen ganacsiga ugu badan Soomaaliya, daaraha ugu dhaadheer Muqdisho iyaga ayaa lahaa, wax ka maqanina ma jirin, balse saluug ay ka muujiyeen xaqoodii kaga maqan yahay hadday noqoto resources iyo wixii dalka maalgelintii dalka iyo wixii cashuuri soo bixiyo xamaro qura lagu dhisay, iyo hadday noqoto xilalkii ugu munaasibsanaa oo xamaro qura ay qaadatay ama qabiil gaar u qaatay. haddana maanta in qabiil gaar loo qaraba kiilo waa mid aanu caqligu fayoobi aanu sheegaynin, waa mid aanay dhalinyarada reer Somaliland u cuntamin, waa mid aan bulshadu aysan eegan karanin. waxaan usoo jeedin lahaa madaxweynaha iyo inta ku xiran bal ummadda in cadaalad wax loogu qaybiyo, inta kuraasi baarlamaan oo laalanba laga hadlayo doorashooyin aan la qabaninba meeshay saldhigan doonaan, bal isagu dikraatooyinka kusoo saaraya bal ummadda ha ugu cadaalad falo. caqli ma sheegayo in madaxweynaha hal beel kasoo jeedo, guddoonkii maxkamadda sare uu isla beeshiisa yahay, taliyihii ciidanka qaranka isla beeshiisa yahay, iyo guud ahaanba in xilalkii ugu muhiimsanaa ay beesha dhexe ay haysato. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.